warahmatullaahi wabarakaatuh. Ramadaan Kariim daawadayaal guud ahaantiinba ku soo dhawaada warkii telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV oo idinka yimaada stuudiyihiisa magaalada Hargeysa. Qodobada ugu waaweyn aan caawa idinku hayno warka waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda macdanta iyo biyaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Xuseen Cabdi Ducaale ayaa dhinac isaga leexiyay eedeymo culus oo uga yimi qaar ka mid ah xildhibaanada labada gole ee guurtida iyo wakiilada Soomaaliland. dadka danyarta ah ee ku ganacsada saribada inji ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ay cabasho baan ka muujiyeen dawladda hoose ee magaalada Hargeysa oo ay sheegeen in aanay waxba ka qaban ballanqaadyo ay hore ugu ballanqaaday in ay u dhisi doonto dhul ay ku ganacsadaan. xarunta gobolka Togdheer ee magaalada Burcana waxaa si weyn looga dareemayaa u diyaar garowga maalinta Ciid al-Fidriga ee fooda inagu soo haysa iyadoo suuqyada kala duwan ee magaaladaasina boqolaal dadweyne ah oo doonaya in ay iibsadaan dharka ciida ay ku mashquuliyeen suuqyada ku yaala magaaladaasi. maxkamad ku taala wadanka Masar ayaa waxa ay toogasho ku xukuntay xubno ka tirsan ururka xagjirka ah ee ka dagaalama gobolka Sinai ee dalka Masar. qarax weyn oo ka dhacay bartamaha magaalada Dimashq ee xarunta dalka Suuriya waxaa sheegatay kooxaha kacdoonka ka wada ee dagaalka kula jira ciidamada Bashar al-Assad. daawadayaal intaasi waa warkii oo kooban imika iyo haatan u diyaar garooba warkii oo faahfaahsan. wasiirka wasaaradda macdanta iyo biyaha ee Soomaaliland ayaa dhinac isaga leexiyay eedeymo culus oo uga yimi qaar ka mid ah xildhibaanada ku jira golaha guurtida iyo golaha wakiilada Soomaaliland kuwaas oo ku eedeynaya wasiirka in uu si ku dhisan qaab qabiilnimo ah uu u qaybiyay deeqo mashaariic dhinaca biyaha ah oo laga fulinayay deegaamo ka mid ah Soomaaliland. mas'uuliyiinta u sarreysa oo ka mid yahay wasiirka wasaaradda macdanta iyo biyaha oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xafiiskooda magaalada Hargeysa ayaa waxa ay ku tilmaameen eedeymahaasi qaar aan sal iyo raad toona lahayn oo ka fog xaqiiqada. waxaanay sheegeen in eedeyntaasi ama xildhibaanadaasi uu soo abaabulay ama uu soo dhaqdhaqaajiyay mulkiilaha shirkad wadani ah ka jirta magaalada Burco taas oo doonaysa iyadu in ay mashaariicdaasi qayb ka hesho. mas'uuliyiinta wasaaradda macdanta iyo biyuhu waxa ay ku eedeeyeen shirkadaasi soo dhaqdhaqaajisay xildhibaanadaasi in ay doonayso in danta guud ee caamka ah ay ka horumariso danta shakhsiga ah si ay u gaaraan ayuu wasiirku yiri ama mas'uuliyiintaasi yiraahdeen yoolkooda gaarka ah. shirkan jaraa'id ee mas'uuliyiinta wasaaradda macdanta iyo biyaha ee Soomaaliland qabteen ee ay ku beeninayeen eedaha loo jeediyay wasiirka wasaaradda macdanta iyo biyaha Soomaaliland Xuseen Cabdi Ducaale waxa ugu horeyn ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Siciid Axmed Jibriil oo isagu ku nuuxnuuxsaday qaabka ay Soomaaliland uga hirgeliyaan mashaariicda ama deeqaha dhinaca biyaha ee loogu deeqo Soomaaliland taas oo uu sheegay in wasaaraddu u eegto baahiyaha ka jira deegaamada dalka ee Soomaaliland iyadoo oo si siman loogu qaybiyo guud ahaanba deegaamada iyo gobolada Soomaaliland ee baahiyaha dhinaca biyaha qaba. agaasimaha guud waxa kale oo uu beeniyay eedaha wasiirka wasaaraddaasi ay u soo jeediyeen xildhibaanada ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland iyo wakiiladu kuwaas oo iyagu wasiirka ku eedeynayay in uu si sharci darro ah u maamulo mashaariicda biyaha ee Soomaaliland la siiyo isagoo oo farta ku fiiqay inuu wasiirku si gaar ah beeshiisa uga faa'iideeyo deeqahaasi. agaasimaha guud waxa uu ku tilmaamay eedaha xildhibaanadaasi qaar aan sal iyo raad toona lahayn oo la soo dhoodhoobay isla markaana ay adeegsanayeen qaar ka mid ah shirkado wadani ah oo iyagu ku guul daraystay mashaariicdaasi in ay ku guuleystaan fulintooda. agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo biyaha Siciid Axmed Jibriil waxa uu ku eedeeyay in xildhibaanadaasi ay soo dhaqdhaqaajiyeen
dhaqaajiyeen isla markaana ay ka dambeeyeen mulkiilaha shirkadda lagu magacaabo Alnafura oo iyadu ka jirta magaalada Burco taas oo iyadu heshiis ay la gashay wakaalada biyaha ee magaalada Burco ka badbadisay heshiiskaasi oo doontay in wax dheeraad ah loogu daro agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo biyuhu waxa kale oo intaasi ku daray oo dadweynaha Soomaaliland gaar ahaan dadka ku nool magaalada Burco ugu baaqay in ay iska jiraan dadka ku hadlaya hadallada caadifadaysan ee ka faa'iideysanaya mashaariicda laga fulinayo deegaamadaasi wasiirka wasaaradda macdanta iyo biyaha ee Soomaaliland Xuseen Cabdi Ducaale oo isagu ka hadlay shirkaasi jaraa'id ayaa waxa uu iska leexiyay eedeymahaasi loo soo jeediyay isagoo oo sheegay inay wasaaraddiisu mas'uul uga tahay dalka inay la socoto dhaqdhaqaaqa ama mashaariicda dhinaca biyaha iyo sidii ay Soomaaliland guud ahaan u heli lahayd biyo ku filan wasiirku waxa uu ku tilmaamay eedeymahaasi qaar meel waayay oo la doonayo in lagu carqaladeeyo mashaariicda horumarinta ee wasaaraddu ku dadaalayso in ay ka fuliso dalka wasiirka wasaaradda macdanta iyo biyaha ee Soomaaliland Xuseen Cabdi Ducaale waxa uu sheegay inuu yahay mas'uul qaran oo isagu u siman guud ahaanba dalka isla markaana had iyo habeenba u taagan sidii uu ugu dooni lahaa deegaamada Soomaaliland ee u baahan biyaha riigag ceelal u qoda si ay uga faa'iideystaan riigagaasina dadka danyarta ah ee ku ganacsada salibada enji ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ay cabasho xooggan ka muujiyeen ballanqaadyo ay u sameysay dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ballantaas oo ahayd in ay u sameyn doonaan goobo ay ku ganacsadaan kadib markii dhulkii ay ku ganacsanayeen ay hore dawladda hoose ee magaalada Hargeysa u burburiseen wariyaal ka tirsan telefishinkan madaxa bannaan ee Bulsha TV oo iyagu dadweynahaasi la kulmay ayaa waxa ay dadweynahaas u sheegeen in maalmihii u dambeysay ay dhibaato xooggan la soo diristay ganacsiga yaryar ee ay ka doonaan qowta daruuriga kadib markii qorraxda iyo roobkuba ay goobo bannaan ah oo dawladda hoose ku daalisay ganacsigooda ay ku heleen sidoo kale wariyaashani waxa ay isku dayeen in ay wax ka weydiiyeen mas'uuliyiinta dawladda hoose ee eedeymahan dadka danyarta ay u jeediyeen hase yeeshee umay suurtagelin inay helaan waxa warbixintan oo faahfaahsan inoo qaada dhigi doona wariyahayaga Cabdiraxmaan Ilkacase ganacsatada danyarta ee ku ganacsata sariibada inji ee magaalada Hargeysa ayaa cabasho ballaaran u soo jeediyay dawladda hoose ee magaalada Hargeysa iyagoo sheegay in dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ay ka gaabisay baahiyaha asaasiga ah ee loogu talagalay inay ka qabato caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo sheegay in dawladda hoose ee magaalada Hargeysa iyo waliba xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay hore uga rareen sariibadaasi inji danyartii ku ganacsan jirtay iyagoo sheegay in dayactir ballaaran loogu sameynayo sariibadaasi inji balse bay yiraahdeen ilaa hadda aanan wax warsugan ka helin dawladda hoose ee magaalada Hargeysa sariibada injina markii uu dhismaheedu bilaabmay aanay dadkii hore ugu ganacsan jiray sariibadaasi inji aanay degin balse ay ku arkeen dad cusub iyagoo sheegay in dadkii danyarta ay ku ganacsanayay sariibadaasi la dejiyay min 1 mitir waa kuwan qaar ka mid ah danyarta sariibadaasi ku ganacsado oo iyagu arrimahaasi ka hadlaya aniga magacaygu waa Baarax Cabdi Ibraahim waxa aan ka cabanaynaa gudoomiyaha inji Maxamed Ali Aadan iyo gudidiisa kale waxaanu kaga cabanaynaa markii dawladda hoosena baabiisay ijciiriyo isaga kulli loo dhamaa waanu doonaynay inaanu degno si fiican loo dajiyo boosaskayga loo dhiso dadka suuqa nagu soo biiraan waanu hambalyeynay sababtoo ah mid xismo in la soo dhaxgal aad iyo aad ayaan u jeclay tii way noqon weyday gudoomiye baabal khiyaami sameeyay 24 juwan buu keenay 24 ka juwan wuxuu yiri waxa siiyay dukaamada ka dhisnaa iji 24 dukaan oo iji ka dhisnaa totalis maba aan jirin waa dad injiya oo dhibaataysan oo gudi lahayn
oo wax u taliya lahayn oo intay ka baabiyeen maatidii iyo caruurtii iyo dumarkii halkay ku ganacsanayeen intay ka baabiyeen waxba u tari waayey waxaanu doonaynaa ama dawladda hoose ama dadweynaha ama madaxweynuhu inuu wax noo qabto sideed sano lacagna laga guri jiray markaanu maxaad noo haysaa waxba idin ma haymo ndhooma naga dhaqaale la weydiiyo arrimaha gudaha ku shibuudhay arrimaha gudaha laftirkiisa dadka miyuu dhacaya miyaanu waxaayaga waxaan qura xaqayga xuquuqda iska duway gudoomiyo hana xisaabiyo waa in loo soo joojiyo maasuqa waa in la keeno inji gudaheeda saasaan doonaynaa madaxadii hadal ma baahanin anagu haddaan ku jiin kaba rabo anaguna cidnaba jikarno ilaahay mooyaane maraanu haddaba isku daynay inaan wax ka weydiino gudoomiyaha sariibadaasi inji maxamed cali aadan indhacase oo loo soo jeedinayo eedeymahaasi ayaa waxaa noo suurtagelin inaanu halkaasi ka helno gudoomiyaha sariibadaasi qaar ka tirsan danyarta haddaba ku ganacsada sariibada inji ee magaalada Hargeysa ayaa maray la hadlayeen dawladda hoose ee magaalada Hargeysa waxay sheegeen in dawladda hoose ee magaalada Hargeysa waxba ka qaban weyday qashinka buuxdhaafiyay sariibadaasi inji oo qashinka sariibadaasi yaala iyo goobaha ay ku ganacsadaan isku jiraan hal talaabo oo kuwan qaar kamida ganacsatada yaryar ee ku ganacsada sariibadaasi inji oo arrimahaasi ka hadlaya annagoo dadkii halka deganaa ku ganacsanayay lagana dumiyay ay kala dumisay dawladda hoose ee magaalada Hargeysa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaa si xawli ah uga socda dhaqdhaqaaqa dadweynaha ku dhaqan halkaasi ay ugu diyaar garoobayaan ciid al-fidriga oo iyadu fooda inagu soo haysa oo maalmo kooban inaga harsan yihiin naga xigaan tukashada salaada ciid al-fidriga waxaa gudaha magaalada Burco looga dareemayaa diyaar garow xoogan oo loogu jiro dabaaldegga maalintaasi magaalada waaweyn lagu gado dharka iyo kabaha waxaa buuxdhaafiyay dumar iyo carruur aad u tiro badan oo kuwaas oo soo diyaar garoobay sidii ay iibsan lahaayeen dharka ay ugu dabaaldegi lahaayeen maalintaasi ciid al-fidriga qalabka carruurta ku ciyaarana si weyn loo nashqadeeyo iyana eedaada suuqyada Burco kumanaan shaqaalaha oo iibsanaya alaabooyin kala duwan ayaa kula kulmaysaa gudaha suuqyadaasi kuwaas oo maalmoodkooda ka soo saara alaabtan ay ka iibinayaan dadkan iibsanaya alaabooyinkay ku iibi lahaayeen marka aan suuqaya santiyaha sida loo kala ugu soo jiray waqtiga heerna way ahayd hadda waxa dareemayna si wanaagsan soconaysa haddii aan xagga ka hadlo dharka iyo alaabta galada soo gashay kii horaba safarada waxay ma jiraan tobanka ugu dambeeya waa galaashay laakiin tobankii bisha waxaa soo galay safaro badan magaalada ameerikana ooyinaya carruurtooda ayaanu kula kulanay gudaha magaalada waxaana naga bixiyeen sida ay u arkaan ciidani dhanka kale waxaa gudaha magaalada xarunta gobolkani Togdheer ku sugan kumanaan dhalinyaro ah oo aan haysan lacag ay ku iibaan isla markaasina aanay jirin cid eedaysa ama badanaynaysa xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Jilaani iyo ganacsatada ku dhaqan dalkani Somaliland ayaan dhar jalaab uga siin dadkani baahiyeysan isla markaasina u baahan inay dabaaldegga ciidaasi kala qayb galaan carruurta da'dooda Axmed Ahmed Gurabaqay wararka telefishinka caalamiga ee Bulsha TV dawadayaal intaasi waxaan ku soo koobaynaa warkii telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV oo caawa aan halkan idinka soo jeedinay anigoo Saleebaan Ibraahim Xaashiya intaan warkiisa ku kulmi doono dhammaanba aniga iyo akhyaartii igala qayb gashay tabinta warkanba waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh